ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay haweeney ku eedeysan in ay dishay kadibna ay gowracday gabar 12 sano jir ah oo meedkeeda maalin ka hor laga helay deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Fartuun Cadaan Sheekh Cali oo dhashay gabadha 12 sano jirka ah ee la gowracay ayaa waxay sheegtay in gabadhaasi ay gowracday habaryarteed hooyada la dhalatay isla markaana aysan ogeyn sababtii keentay laakiin uu jiray muran iyo isqabqabsi muddooyinkii ugu dambeeyay gabadhaas yar ee 12 jirka ah iyo habaryarteed oo 20 jir ka dhaxeeyay kaasi oo markii dambe sababay in la waayo gabadha 15 cisho markii ugu dambeysana la helay iyadoo dhowr maalmood gowracan. waxay ka sheekeynaysaa xaaladda iyo sidii wax u dhaceen. anigu horta meeshii ma aanan joogin oo xamaran kula joogo ma garatay. waa garta gabadha anigu hooyada ay tiri gabarti si anoo xamar joogo gobolay meel leeyahan deganahay gabadha waan u diiday adeegsato maaragtay cunug yaro iyo loo yahay camal ay haysato inay maaragtay qofta diiska way yeeloodan ilmaha yar way jeceshahay inay maaragtay dadka iyadu wax ka dhashay wax ku leedahay camal ah usi waa garta hadda cadowgaanina waa hoos joogo hooyaday loona filminay arrimahan iyo waxaan ku dhaqaaqay oo qof waalid ah leeyahay waa garta hooyaday meel magaalada hadda Godinlabe leeyahay u muuqata xoogaa u jirta ay deganeed baraaga uga qodnay biyeeda ugu jira alxamdulillah xoolaheeda u joogo guriga uga dhisan meeshaasay maaragtay hantiga guurtaa u tiiro xoolaheeda ay waxeeda ku dhaqanaysay waxay aniga markii war ugu soo gaarsiisay cunug yar iyo soo dhiib oo uga tagtay guriga hooyaa ku dhahaysa waa weynaatay maray guursanaysana ma naqaan iyo waxaas marka cunug yaraan rabaa oo maana aan haysto maalin adiga gabadha hadda waan soo dhiibay 5 bilood ay gabadhaas gurigaas xaadir ku ahayd ay ku nooleed waa garta 5 bilood 3 jeer oo kamid ah ay aniga qaas ahaan isoo wacday tir hooyo aniga habaryar waa idishay hooyo aniga habaryar surkan ka gooyahay tir hooyo aniga ayadii waxaan xaq ku dhacay gabadhaan ku soo dhiibay inaad u heshato oo markii hooyo suuqa idinka aadi magaalada aado aad maartay laba qof oo guriga ku haraysa aad noqotiin oo kale nimadan ku diiday maxaad maartay walaalay aad gabadha ka sheeganaysaa ay markaas jirnaa waxaan naga cil hooyo nagu dirto hooyo bay nagu diraysaayo weliba yaala waxa u dhiga maar amal waa garta gabadha yarana la hadlo waxay hooyo iyo habaryar mar dambe ha isku dirin ana dad war adigu u kala sheegtay waxaan u kala sheegay ma jiraan hooyo macaan aniga ayada say waxay ku dirsatay ma u doontii daara ka badan ma dhihinay tir waa ka badan ma dhihin waa garta hadii dilaysa waa daara ay tir waa uleen soo qabsatay saas ay ugu dhafa ila dhacday tir markaas hada waxa waa dhamaadeen ari waa habaryar canaanteed ha u qaban hawiye waxaan fasameeyay inuu joogo naadna walaal waxaan gabadha sirsiro waa garta ilaahay ma beenayne mar adiga hadda isniinteedii kala ahayd galab axadi ay dhammaanaysay isniina soo gelaysay gabadha dishay waa qaratay waxay tiri gurigan ku dilay hooyo suuqay soo aaday magaaladay soo aaday waa garta gurigan gabadha ku dilay tiri iyadoo dhiig iyo tufaydo iyo jilicsanaan waday tiri waxay tiri waxaan geeyay meesha meel ceelale meesha ku soo warantaa waa aragtay kulli si wanaagsan ceelkan geeyay tiri ama ku ridaan shariitay ama ku qabsataan shariitay kugu dhaftaay aad fiicdi markaan gowraca u diyaashay tiri umri marka waxaa la yiri midida ma xageed ka qaadato ma gurigaas ka qaadatay waa awalan si soo gatay tiri waa midis guriga kama qaadanana waa garta hada marka walaalo dhacdadaas ay ugu dhacday gabadhii loo ka xirtay indhahay ka xirtay afkay mara ka geliday gacnahay ka xirtay kabacdina xarigay ku ciijiday eegada la soo ka bacdina mididay marsiday xarigina wuxuu ugu xiran yahay qaybtan hoose oo dhunta u weyn tahay robada gabadha halkaas ku yaal labada dhagood salkoodii ku geys way marka gabadha walaasha ah ee habaryarta ah wax dishay imise jir way daadeed waa 20 sano 9 iyo 10 ay u dhaxayso 8 waa ka baxdo
gabar caafimaad qabta ma ahayd maskaxiyan iyo xaaladeeda caafimaad maxaa caafimaad qabtaa waa caafimaad qabtaa saad ii soo xusuusatay ood ii soo wacayso ood u tiiraayaysan tahay oo inay maaragtay sida caasi aniga ay qabtay aad uga damqanayso iyoobida aad kusoo xasuusato kale qabtaa caawa waa garta marka ma waxay kuu sheegtay wax dhibaato ah oo aan ahayn keliya in muran ka dhexeeyey oo ay gabadha u disho wax kale oo ay kuu sheegto duruufaa ma jirta oo dilkeeda keeni kara hadda intaasba boliiskiga ka soo saara maahan aniga iima isa sheegin xitaa waxaan idhi gabadha weydiiya hadday gabadha waa tagto xamaray u baygarto waa cararto macnaha hooyada iyo wax saasa tiri macnaha waayay hooyay gabadhi ma ha tagta ma xumee gabadhi shaqadeedii ruuxa didna waa la ahay gabadha inay maaragtay markaas ay la dirirta xitaa inta u hanjirtay ambay xitaa afka isafdhaafeen gabadha xanaaq ku tagta xitaa weydiiya ari jahada u dhaqaaqdana weydii waa garta war gabadha waxaan kaba suura waxaana ma yeeli karta camalay jawaab u siida hooyo aniguna maaragtay waalidka inaan xushmeeyaa fiican si wanaagsan waaya marka ilaa intee maqneed ka hor geerida intaanan ogaanin intee way maalmaha ay maqneed ama la weysanaa gabadha sideedaba shalay isniin heeda helnay 15 habeen ay meeshaas tiid iyadoo la gowracay ama geeriyood iyadoo gowracan ay meeshaas tiid 15 habeenna walaasha maysan sheegin in gabadha ayada dishay gabadha ayada dishay ma aysan sheegin annakuna nafis aan maaragtay ku kontroolno inay qoftaani dakana qabto inaysan qabin macnaha ma aananba samayn oo meesha maaragtay ayada gabadh cunugtii raadiskeeda ma ku jirnaba sidee lagu hela marka meydka gabadhan see idinku soo gaaray wuxuu nagu soo gaaray meesha waa taqaanaa xamar waad joogtaa meesha carakaawada laga doono iska roguhu aado baabuurka iska rogaha ay u aado oo dhagaxa laga soo raro oo carakaawada laga soo raro kaymo meeshaas u dhadhow kayn ka mid ay ku gowracad oo ana godin lawa halkaa waa garta galcad meel la yidhaha ku birayda galcad waa garta marka dad gaadiidley ama howl ku jira arkay oo usoo urtay xitaa urkay raaceen maahane raad iyo ruux midna meel laga helaayo maahan waa meel gabiibiya waa meel gawaana diyaaradda iyadoo amar la-aan ku degi kartaa kana duuli kartaa meeshaas marka dadkaa dee hoolay ku jireen ma waxay ogaayeen in gabar idinka maqneed sidee ayay warbixin waa ogaayeen wiilal xaafadda deganay ahaayeen wiilal xaafadda ku dhasheen oo ka shaqaysanay ahaayeen abtigay isla markiiba hore usoo wicintay waxay dhaheen walaadhe meeshaana qof cunug ahoo dumar hina taal waatii hadda gabadh idinka maqneed soo ordaba haye haddii la kala orda waaba iyadii garbasaarkeedii jarjartay ay ku xirxirtay ay u adeegsatay waa garta marka dharkeedii dhammaaba ay googoysay midi aflahay ku diibiday korkeedii iyo dharkeediiba waa garta marka ma halkaa oo midi ah oo gawraca ayaa ku tiilay mise dhaawacyo kaloo jiraha la arkaya oo gabadha gaaray dhaawacyo jiraya midna cunugta dhambacaaday u tiri waana kala qalloocneed waana ay gawracdo gawriciyaa ku yidhi gurigeeda waa kala go-an yahay gabadha mise jir ahayd gabadhaada waa 11 walaal waaya marka hadda gabadha walaasha ah booliiska gacanta ugu jirtaa miya booliiska gacanta ugu jirtaa ma iska wareysatay marka adigii walaalo iyo hooyada anigu weliba lama hadlin guriga baadiye jirtaa ana guriga magaalada ku yaalo reer aftiyaashay baan joogaa marka kolley wixii dhamaystirayna sidai alla ka dhigay noqon doonaan marka hadda walaal waa taasa arrinta waa noocaas adi hadda xamar miyaa joogtaa mise godin labaan joogaa xamar gabadhaadiyaa la waayay hadii la yidhaan godin laba ka carara xamar ka cararan baabuur laylaha waxaan u raacay godin laba intii aad gabadha weysaneedeen walaasha ma is aragtee marna waan is aragn haye maxaa ku sheekaysatay markaan soo raadino soo weynaba kolley meeshaan ugu imaanaynay iyadoo guriga joogtaan u imaanaynay qof awal markii hore furfuran oo walaalaha dhex gashta oo kula farax ka cayaaraysa oo kula maaragtay maadsayda oo kula kuu furfuran oo kuu qoslayda oo wejigiisa kuu furan yahana marka horeysan ba ahayn waa garta waaya marka qofta marna ma kula raadayso marka gabadha walaasha ma kula raadisay gabadhaada ee maqan maya idda kamaysan degan waa garta idda kamaysan degan adi marka maxaa ku xal hadda qorshaaga maxaa weeye gabadhaadaa la dilay walaashaha dishay booliiska hadda gacanta ku haya see u qorsheynaysaa arrintaas ilaahay baan u bandhigay
واجر maaragtay hooyadii aniga dhashana laba goor beerka hal gooyo dhihin maayo anigii qofkaasoo tiirka liigay waa dhihi karaa aniga hay laakiin hooyadii laba goor beerka hal gooyo gabadheedii hadda yareeday haysatay oo yalla ilaahay ku duceeyo gabadha wax ku nastay tiri waa laga dilay oo jeeta mid ku dhacdo واجر midaan hadda waxa waaye iyada maaragtay iyada jirkeeda la ka soo gooyay haday rabtay isna sabagelno meesha doonta ka tagto oo isla hadlayno calaaqada dambe haday rabaan yeelan haday rabaan isu yimaadaan waa dad isdhala laakiin aniga isoo samaysan waaya marka gabadhan walaasha ah ee dishay gabar ayada waaya marka hadii gabadhii ayada habareed u ahayd ee dishay waliba aad uga yareed ma la joogaysaa hooyo idinku ma ku aaminaysaa in hooyo la sii joogto ma ku aamini karo haday doonto hooyaday waa maaragtay inta iska xanaaqday kulkulaato magaalada ku dhacday xadii ayada gabadhii dishay tiraahday darsa aydan ku daree marka walaalkay wallahi billahi mucjisa meeshan ka taagan waa wiilal ma jiraan oo idin la dhashay labadiina hal wiil baa nala dhashay waana iyaduna ka sii yariya waa ma santa maxaa hadda ku talin lahayd oo xal u aragtaa waas leedahay dibkii ku gaarana waad uga kaban hooyana way kugu caafimaad qabtaa waa kugu badbaadi kulli hadda qoftaas inaan dalka iyo dunida iyo ilmaha daafaha jooga oo yarirka oo argagax ay kala qaadeen oo qof walba hadda ilmiya waxay leeyihiin hooy anigu waxay hadii la soo daayay aniga barayda waa gart waa fahanto Soomaa si wanaagsan hooyadayna uma aamino habeenna uma aamino maalin uma aamino hadda taana waxay xala oo ay ka gaari lahaayeen barkii ciidamada amniga ayaa ka laga rabaa inay gaaraan laakiin adigu marna ku talin mayso in lagu tiir lagu geeyo ma tiir liigay ma aniga maxamed maxamuud baa la yiraahdaa waxaan maaragtay 5 bilood muddo ah ayay joogtaa 5 bilood oo muddada aniga gabadha 3 jeer bay soo wacday intii caadi ilaha shamaha intii marweysneed saddexdaas jeer oo soo wacdana mar leylama joogo oo cid labaan ahay ayay tiri labada goor oo kalena waxay ka sheeganaysay habriirteed ay ka sheeganaysay marka saas darteed anigu ayada waxaan ku hubo maanta male ilaahay baan cadaaladda soo daba dhigaya saas iyo saas amaarta maanta aniga cunugtayda familkayga ku sameeyeen ma dhihi karo kuma hubo gacanteeda anigu ma arkin xaqiiqada way dhiman tahay laakiin madaxda Soomaaliyeed iyo bahda saxaafadda iyo booliiska iyo taliyaha waxaan ka codsanayaa xaqiiqadaas hadii xaqiiqada inay soo baxshaan in maaragtay cadaaladda la ii marsiyo dambiilihii gabadheeda sidaas u silciyay tamtiiliyay barkee carabiga qalitaanka iyo bareeska tamtiil ayaa loo yaqaan dadka saas midida ugu galay gabadheeda arxan darrada u dilay silca u dilay nafta ku dhibay maaragtay waa in cadaaladda waa in la soo hortaaga Salaad Ciise Cali Tuuxu oo ah abtiga hooyada dhashay Caaisho isla markaasna ahaa awoowaha gabadha Caaisho ee dhimatay ayaan kula kulannay halka Caaisho meedkeeda laga helay laguna aasay waxaan rabnaa wax ka weydiino su'aalo ku saabsan qaabkii gabadhaan u dhimatay iyo sidoo kale qaabka loo helay meedkeeda ugu horeyn soo dhawaaw waa mahadsan tahay gabadhan waxay maqan tahay oo lala yahay 15 cisho 15 cisho hal qof oo arkay hal mar ma jirto maanta ayaa meesha meedkeeda laga helay waxa ku arkay niman dhagaxlayaal ah oo nimanka muruqmaalka ah ayaa arkay waa noo soo qaylo direen magaaladii gurmadkeedii iyo dadka qaraabada u ahaa inagoo ahaan meeshii nimid gabadhii waxa xaqiiqsanay inay tahay Caaisha Maxamed qofka halkan yaallo meedka waa xaqiiqsanay markaas kadib waxaan loo yimid ciidamada booliiska degmada Godinlabe arintii waxay ka duubeen kaamarooyin iyo cadeymo iyo wixii ay arkeen oo la kulmeen oo dhan way hayaan booliisku aad bay u dadaaleen waxay kaloo sameeyeen gabar yar oo maaragtay isla faamilka oo wax lagu tuhunsanaa waa soo qabteen saldhigay hadda ku xiran tahay intaas ay qabteen anaguna markaa kadib waxaanu gallay inaanu gabadhii aasno asturno xabaasheediin hadda taagannahay
halkaasaa maaragtay hadda aniga iigu yimid iyo dadkii kaloo gurmudka ahaaba sidaasay marka arrintu u dhacday. waa dhacdo murugadeeda leh waayo waxaa u xiran habaryarteed oo la dhalatay hooyada dhashay Caaisha Maxamed oo lagu tuhmayay inay ka dambeysay dilka gabadha yar. taliyaha booliiska Godin Laba Maxamed Ciise Nuure ahayd ninkaan u raaci jiray wuxuu leeyahay gabadhan siduu ii kaxeeyey wuxuu i geeyey qol aad iyo aad loo hardhay oo firaash fiican la dhigay. waan galay gurigii waan wada fadhiisannay waan sheekaysanay aniga iyo isaga un baan nahay. waxaan xusuusan waayay maalinkaa isaga xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam ee ahaa rag iyo dumar yaysan keligood meel wada fadhiisanin haddii kale shaydaan baa saddexaynayo. laakiin shaydaankii baa qalbigayga waxa uu ku camiray erayada ninkan ka soo baxaya ee macaanka badan. waan fadhiistay isaga ayaan eegayaa isagana wuu eegayaa sidaan isu eegaynay. markii dambe waxaa ina daboolay wixii ina daboolay ee foosho xumaa. ma ogi bay leedahay waxa dhacay. waxaan ka war helay anigoo aad moodo inuu ruuxan wax allaala wuxuu doona iga sameeyey oo aan waayay maskaxdaydii. jirkaygana anigoo qaawan baan ka soo toosay. wax allaala waxaan adduunka u jeclaa noloshayda qiimaha ugu badnaa ayaan meeshaa ku waayay. waan soo booday sida qof waalan. war maxaad igu samaysay baan idhi. wuxuu igu yidhi habaqin xaaskaygii baa tahay. sideen xaaskaaga ku noqdaa? ma adiga ayaa i guursaday oo weli i mehersaday? wuxuu yidhi mar dhow baan ku mehersan doonaa. guriganagii baan aaday anigoo xaalkayga aan la ogeyn sida uu yahay. lugahayga awood iyo itaal uma laha inay i qaadaan oo waan socon waayey. jirkaygii olol baa ka soo baxay. ilaahayow maxaan sameeyey maxaa igu dhacay baan isweydiiyey. adduunkii baa mugdi igu noqday. indhahaygu waxba ma arkaan. waxaan bilaabay inaan ooyo si aada aan u ooyo. waxaan ka tegay waxbarashadii. xaaladaydii way xumaatay oo aad iyo aad bay u liidatay xaaladayda. laakiin qof ehelkayga ka mid ah ma uusan ku guulaysanin. sababka aan oga haray waxbarashada iyo noloshayda waxay isku beddelayso marba maalinka kasii dambeeya jirkayga sida uu noqonayo. hase yeeshee hal rajo ayaan qabay oo rajada aan qaba waxa ay tahay kulankii uu ii qaaday inuu guursanayo. maalmo ayaa ka soo wareegatay oo aniguna aan iscanaananayo. wax aan sameeyo aanan garanaynin. buuraha wax ka culus baa i saaran. waxaan isweydiiyaa maxaa kugu dhacay? maxay ahayd waxa dhacay? waa maxay waxa noloshaada burburiyey? anigoo inta ku fakaraya ayaa teleefoonka guriga soo dhacay. wuxuu ahaa codkiisa. meel fog qof ka soo hadlaya ayuu ekaa. wuxuu igu yidhi waxaan doonayaa inaan is aragnoon kulanno. arrin muhiim baan ku hayaa. aad baan u farxay. waan takbiirsaday. waxaan mooday shayga muhiimka uu ii hayo in ay tahay arrinta guurkanaga inuu ka hadlayo. ninkii isaga ahaa waxaan isku qaabilnay bay leedahay gabadhan. meel baan isku qaabilnay oo guri ah kiig aan ahayn. markaan wada fadhiisannay waxaan arkay wejigiisa inay ka muuqato calaamado aan farxad lahayn. inuu u eg yahay nin xumaan kala damacsan baan dareemay. wuxuu igu yidhi wax walba inta aan la samaynin ha fakarin. arrin guurna ha ku fakarin weliga ay allaha. waxaan doonayaa aniga adiga inaan saaxiibtimo ku wada noolaano. wax shuruuda ha isoo hordhigin. gacantaydibaan madaxa saartay. waxay leedahay wejigii baan ka dharbaaxay. waxaan ku eri balaaya kugu dhacde waxaas ayaad u soo dhigatay oo intaas miyaad iigu yeertay? waxaan ku eri waxaan moodayey in aad khaladkii aad samaysay aad saxayso. laakiin waxaan arkay inaad tahay nin aan qiimo lahayn akhlaaqna aan lahayn. waxaan ka soo baxay gurigii anigoo hooyayo. wuxuu igu yidhi si dabacsan fadhiiso. fadlan soo laabo oo fadhiiso. waxaan arkay markaan sidaa usoo jeestay isagoo gacanta uu ku hayo cajalad TV. faraha uu kor ugu hayo isagoo ugu jeesjeesayo. markaasuu eray aan ka naxay jirkaygii dilaaciyo igu yidhi. wuxuu yidhi noloshaadii iyo mustaqbalkaagii cajaladdan ayay ku jirtaa. waxaan ku eri maxaad sheegaysaa oo cajaladda gudaheeda maxaa ku jiro? wuxuu igu yidhi kaalay aan ku tusiye cajaladda gudaheeda wax ku jiro. waxaad arki doontaa wax kaa yaabiya. waan raacay cajaladii si aan usoo daawado. waxaan arkay bay leedahay intii miirkayga uu maqnaa wax allaala wixii jirkayga uu ku sameeyey ee xaaraan ahaa oo cajalada ku duuban. markaasaan waxaan ku eri doqon maxaad igu samaysay?
walbuu ii sheegay waxaan u qaatay inay run tahay, laakiin markuu igala hadlo inaan isguursanayno waxaan mooday gabadha keliya ifka uu jecel yahay guurkana uu ka doonayo inaan aniga ahay, inaan ku wada noolaanayna hal nolol, hal dabaqad oo aan barwaaqo iyo farxad cimriga ku wada dhammaysan doono. waan rumaystay wax walbuu ii yidhaahdo. wuxuu igu dhihi jiray boqorradda noloshaydiyey hadalkaa markaan maqlo wax aan adduunka jirin baan ismoodsiiyaa. jacaylkayga xuduudii buu ka baxay. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu ahaa maalin ii xun, maalin mugdi noloshayda ku ah. waxa aan burburiyey noloshayda, waxaan ka takhallusay mustaqbalkayga, waxa aan ceebeeyey dhammaan familkayga ayaan dunida dadka ku nool ka hor ceebeeyey. waan raacay sida caadada ahayd ninkaan u raaci jiray. wuxuu leedahay gabadhan siduu ii kaxeeyey, wuxuu i geeyey qol aad iyo aad loo hardhay oo firaash fiican la dhigay. waan galay gurigii, waan wada fadhiisannay, waan sheekaysannay, aniga iyo isaga un baan nahay. waxaan xusuusan waayey maalinkaa isaga xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam ee ahaa rag iyo dumar yaysan keligood meel wada fadhiisanin, haddii kale shaydaan baa saddexaynayo. laakiin shaydaankii baa qalbigayga waxa uu ku camiray erayada ninkan ka soo baxaya ee macaanka badan. waan fadhiistay, isaga ayaan eegayaa, isagana wuu eegayaa. sidaan isu eegaynay markii dambe waxaa ina daboolay wixii ina daboolay ee foosha xumaa. ma ogi bay leedahay waxa dhacay. waxaan ka war helay anigoo aad moodo inuu ruuxan wax allaala wuxuu doona iga sameeyey, oo aan waayey maskaxdaydii. jirkaygana anigoo qaawan baan ka soo toosay. wax allaala waxaan adduunka u jeclaa, noloshayda qiimaha ugu badnaa ayaan meeshaa ku waayey. waan soo booday sida qof waalan. war maxaad igu samaysay baan idhi. wuxuu igu yidhi habaqin, xaaskaygii baa tahay. sideen xaaskaaga ku noqdaa? ma adiga ayaa i guursaday oo weli i mehersaday? wuxuu yidhi mar dhow baan ku mehersan doonaa. guriganagii baan aaday anigoo xaalkayga aan la ogeyn sida uu yahay. lugahayga awood iyo itaal uma laha inay iqaadaan oo waan socon waayey. jirkaygii olol baa ka soo baxay. ilaahayow maxaan sameeyey? maxaa igu dhacay baan isweydiiyey. adduunkii baa mugdi igu noqday. indhahaygu waxba ma arkaan. waxaan bilaabay inaan ooyo, si aada aan u ooyo. waxaan ka tegay waxbarashadii. xaaladaydii way xumaatay oo aad iyo aad bay u liidatay xaaladayda. laakiin qof ehelkayga ka mid ah ma uusan ku guulaysanin. sababka aan oga haray waxbarashada iyo noloshayda waxay isku beddelayso marba maalinka kasii dambeeya jirkayga sida uu noqonayo. hase yeeshee hal rajo ayaan qabay, oo rajada aan qaba waxa ay tahay kullankii uu ii qaaday inuu guursanayo. maalmo ayaa ka soo wareegatay oo aniguna aan iscanaananayo. wax aan sameeyo aanan garanaynin. buuraha wax ka culus baa i saaran. waxaan isweydiiyaa maxaa kugu dhacay? maxay ahayd waxa dhacay? waa maxay waxa noloshaada burburiyey? anigoo inta ku fakaraya ayaa teleefoonka guriga soo dhacay. wuxuu ahaa codkiisa. meel fog qof ka soo hadlaya yuu ekaa. wuxuu igu yidhi waxaan doonayaa inaan is aragnoon kulanno. arrin muhiim baan ku hayaa. aad baan u farxay. waan takbiirsaday. waxaan mooday shayga muhiimkuu ii hayo in ay tahay arrinta guurkanagi inuu ka hadlayo. ninkii isaga ahaa waxaan isku qaabilnay bay leedahay gabadhan. meel baan isku qaabilnay oo guri ah kiig aan ahayn. markaan wada fadhiisannay waxaan arkay wejigiisa inay ka muuqato calaamado aan farxad lahayn. inuu u eg yahay nin xumaan kala damacsan baan dareemay. wuxuu igu yidhi wax walba inta aan la samaynin ha fakarin. arrin guurna ha ku fakarin weliga ay allaha. waxaan doonayaa ani adiga inaan saaxiibtimo ku wada noolaano. wax shuruuda ha isoo hordhigin. gacantaydii baan madaxa saartay. waxay leedahay wejigii baan ka dharqaaxay. waxaan ku eri balaaya kugu dhacde. waxaas ayaad u soo dhigatay oo intaas miyaad iigu yeertay? waxaan ku eri waxaan moodayey in aad khaladkii aad samaysay aad saxayso, laakiin waxaan arkay inaad tahay nin aan qiimo lahayn, akhlaaqna aan lahayn. waxaan ka soo baxay gurigii anigoo hooyayo. wuxuu igu yidhi si dabacsan, fadhiiso, fadlan soo laabo oo fadhiiso. waxaan arkay markaan sidaa usoo jeestay isagoo gacanta uu ku hayo cajalad t v.
faraha uu kor ugu hayo isagoo ugu jeesjeesayo markaasuu eray aan ka naxay jirkaygii dilaaciye igu yidhi wuxuu yidhi noloshaadii iyo mustaqbalkaagii cajaladdan ayay ku jirtaa waxaan ku idhi maxaad sheegaysaa oo cajaladda gudaheeda maxaa ku jiro wuxuu igu yidhi kaalay aan ku tusiye cajaladda gudaheeda wax ku jiro waxaad arki doontaa wax kaa yaabiya waan raacay cajaladii si aan usoo daawado waxaan arkay bay leedahay intii miirkayga uu maqnaa wax allaala wixii jirkayga uu ku sameeyey ee xaaraan ahaa oo cajalada ku duuban markaasaan waxaan ku idhi doqon maxaad igu samaysay saqajaan baa tahay makaamirooyin qarsoon baad xaafadda ku xiratay oo waxaad duubaysaa wax allaala waxaad dadka ku samayso jirkooda mustaqbalkooda aad ku baabi'iso markaasuu igu yidhi cajaladdan waa hubka keliyoon u adeegsan karo si aan noloshaada u xakameeyo ama aan u burburiyo waxaad ahaanaysaa qof aniga iga amar qaato waxaad noqonaysaa xilli walba xilligaan kuu baahdo qof ii yimaado maalinkaan kuu yeerto waa inaad ii timaadaa waan ku qayliyey waan ooyey laakiin waxay leedahay arrinta gacantayda kuma jirto oo aniga waxaan samayn kara ma laha haddaan ninkan amarkiisa diido dhammaan qoyskayga sumcadoodii baa bannaanka soo baxayso waxaan idhi waa yahay maxay tahay haddaba maxaad iga doonaysaa wuxuu igu yidhi iska tag aniga ayaa ku soo wacayo haddaba maxay noqotay natiijadii ka dhalatay waxaan noqday bay leedahay gabar la haysta ah gacantiisa ku jirto xilli allaala xilliguu doono ayuu ii yeeraa nin allaala ninkuu doono lacag ka qaadaa markaan guriga imaadana ninkaasi ayuu yidhaahdaa waxa uu rabo u samee lacagtaa isaga sidaa ayuu ku gurtaa waxaan ku dhacay wasakh waxaan ku dhacay bohol aanan ka soo bixi karin noloshayda waxay isu beddeshay nolol wanaagsan iyo gabar aanaan isu beddela gabar dhilaysata ah jirkeeda la iibsado qoyskaygana waxba kama oga waxa aan samaynayo way igu kalsoon yihiin sida gabar aqoon-yahanada ah cajarkii baa meel walba gaaray wuxuu ku dhacay wiil ilmo adeer aan nahay gacantiisa arrintii baa qaraxday labadii dhaleen baa ogaadeen qoyskaygii aan ka dhashay oo magac ahaan aan ka soo jeeday baa ogaaday fadeexadii baa meel walba gaartay oo adduunka meel walboo laiga yaqaano guriganagii waxaan u soo hooyay ceeb waxaan ka cararay meeshii si aan noloshayda bal u badbaadiyo waan isqariyey oo si aan la ii arag waalidkay iyo walaalahay waxaan ogaaday inay magaaladii ka carareen oo meel kale ay u guureen waddan kale waan ka daba tegey anigoo ceebtii iyo fadeexadii jiidanayo waxay leedahay meel walbana waxaa la iiga sheekaystaa in aan ahay gabar dhilla ah meel walba waxaa yaala cajaladii aniga iyo wiilkii aan samaynay ama aniga iyo mid kale aan samaynay waxaan ku dhex noolaa guryaha dadka qurumada iyo saqajaamada dhexdooda ayaa cajaladahayga meel walba ay yaalaan laakiin kaa doqonka ee nacaska ah waa midka iga dhigay sida boombale qof walba wuxuu rabo uu ku samaynayo dhaqdhaqaaq ma awoodi karo sababtoo ah isaga ayaa i xakameeya cajaladahayga haya wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah sababay burburinta guryo fara badan burburinta sumcad gabdho fara badan waxaan go'aansaday in aan ka aarsado maalin maalmaha ka mid ah ayaan jaanis ku helay waxa uu ii yimid isagoo sakhraansan oo cabsan fursadii baan ka faa'iidaystay midi baan qaatay oo wadnaha ayaan dalooliyey waxaan ku idhi ibliis baa tahay bini aadam ma aanan dilin shaydaan baan iska dilay oo bini aadam iska soo dhigay waan ka takhallusay shartiisa si uusan mar dambe gabar muslimad ah uusan u ceebaynin sharafkeeda uusan uga cayaarin waxaan bilaabay inaan ka qoomameeyo dhibkii qofkaa isaga uu igu sameeyey iyo dhibaatadii aniga aan ku jiray iyo dhibka hadda aan ku suganahay oo ah in aan xabsi ku jiro oo aan ahay qof dambiilo oo gacan ku dhiigla ah mar walbo aan xusuusto cajaladii videoga iga duubay waxaan maleeyaa derbiyada xabsiga xitaa inay ku xiran yihiin kaamirooyin oo ma awoodi karo jirkayga inaan ku qubaysto musqulaha qaar qisadaydii waxaan u qoray arrintanna u sheegayaa si ay gabar walba oo muslimad ah ugu noqoto cibro ay ku tusaale qaadato aysan nin damba oo bini aadam ah gabar ugu kalsoonaanin ama aysan guri si keliya aysan ula gelin warqadaha la isu diro ee jacaylka ka sheekaynayo ee qalimaanta kala duwan iyo ubaxa loofka kala duwan lagu